kulanti wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan meel walbood naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa saacado kooban isku dabamaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaan ogsoonayn in shalayto magaalada nairobi uu soo gaadhay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo safar weliba aan horay loo sii shaacinin uu ku yimid dalka kenya waxaa saacado ka hor inta xamse uusan soo gaadhin magaalada nairobi kulan uu ugu soo gabagaboobay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka kenya taliyaha sirdoonka ee dalka kenya iyo sidoo kaleeto sida la sheegay mas-uuliyiin ka socotay dalka maraykanka saacado kooban gudahood ayayna ra-iisul wasaaraha iyo xasan sheekh maxamuud ay isku dabamareen magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa sidoo kaleeto ay xogo sheegayaan hoose in xalayto siqdii dhexe madaxweynaha wakhtigiisu u dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaam uu isagana soo gaadhay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya haddaba maxaa ka socda magaalada nairobi ama dalka kenyaba maxaase ka jira wararka sheegaya in dowladda kenya ay cadaadis ku saarayso madaxda dowladda federaalka in ay joojiyaan ciidamada ay kusoo daadguraynhayaan jubbaland iyo sidoo kaleeto inay weliba dib u celiyaan ciidamada maalmo ka hor ay keeneen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose maxaase ka soo baxay kulamadii xasan sheekh maxamuud iyo madaxda dalka kenya sidoo kaleeto xamse iyo kulamadii uu xamse la qaatay madaxda dalka kenya yaase u yeedhay madaxweynaha wakhtigiisu u dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaam muxuu yahay safarkiisa ujeedada uu ku imaanaya magaalada nairobi se maxay tahay waan dul istaagi doonaa qodobadaasi ayaan si fiican u qaadaadhigi doonaa waxaan dhinaca kaleeto iyadana eegi doonaa dowladda federaalka etoobiya ayaa ku dhawaaqday in kenya ay ka heshiiyeen arrin ay ka wada samaynayaan gudaha dalka soomaaliya taasi oo aysan qeyb ka ahayn dowladda federaalka ee soomaaliya shir uga qabsoomay magaalada adis ababa asbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu go-aamiyey in kenya iyo etoobiya ay iska kaashadaan arrin ay si wada jira uga howlgeli doonaan ama ka samayn doonaan gudaha dalka soomaaliya waan dul istaagi doonaa iyadana go-aanka dowladda federaalka ka soo baxay ee soomaaliya waan dul istaagi doonaa iyadana go-aanka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka qaadatay qorshayaasha etoobiya ay doonaysa inay ka samayso gudaha dalka soomaaliya go-aanada adag ay ku dhegan tahay iyo sidoo kale qorshayaasha etoobiya iyadana ay qorshaysatay ee dowladda federaalkuna aysan la wadanin isdiidooyinka siyaasadeed ee etoobiya iyo soomaaliya khilaafka oo marba barka kasii dambeeya sii xoogeysanaya iyo khilaafka jubbaland oo iyada naftirkeeda faragelin xoogan ay etoobiya ku wado garabna ugu noqotay axmed maxamed islaam diidmada uu dowladda federaalk soomaaliya uu ku diiday iyo sidoo kaleeto guddoomiyaashii gobolka gado oo intooda badan loo qaaday dhinaca etoobiya halkaana looga soo dhaadhicinayo qorshayaasha dalka etoobiya sidaa ay u aragta dowladda federaalka ayaan dul istaagi doonaa hadduu halayno soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga aynu ku bilownee shalay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa soo gaadhay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare isla saacadahaasi uu ra-iisul wasaaruhu imaanahayay saacado ka hor waxaa magaalada nairobi ku sugnaa oo la sheegay weliba inuu dib uga laabtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo habeen hore xilli weliba si dhaxa ah diyaarad kaga soo duulay garoonka efisioni ama xerada xalane ku dhex yaalla diblomaasiyiinta caalamku ay kasoo degaan oo ay ka soo qaaday diyaarad dalka kenya laga leeyahay saacado yar ayay shir ku wada qaateen qolka v i b da ama meesha hotelka v i b da qolka v i b da ee garoonka jomo kenyatta magaalada nairobi ku yaala madaxweynaha dalka kenya william ruto iyo sidoo kaleeto taliyaha sirdoonka dalka kenya nuuraddiin xaaji iyo mas-uuliyiin kaleeto oo la sheegay inay ka socdeen dalka maraykanka xasan waa loo yeedhay halkaas baa shir kooban oo saacado kooban socday ay ku wada qaateen waxay wararku marka sheegayaan in shirkaasi markii uu gabagaboobay horta xilli dambe u imaaday baa layidhi magaalada nairobi hoteelku habeennimadii yuu seexday baa layidhi sida wararku ay sheegayaan warar kalena waxay sheegayaan in
maalinnimadii duhurkii uu kasoo duulay muqdisho oo garoonkan efisoni uu kasoo duulay oo diyaarad khaas oo dalka kenya laga leeyahay ugu imaatay kadibna ay halkaa kasoo qaaday saacado yarna uu garoonka ku jiray oo qolka VIP da ay ku wada qaateen shirka madaxda dalka kenya ka hadlayno iyo weliba madax kale oo ka socotay dalka maraykanka labadaba marka warba waa la hadal hayaa maadaama aan la xaqiijinin oo dhinaca dowladda federaalku iyagu aysan xaqiijinin dhinaca kenyana aysan xaqiijinin laakiin waa warar laga soo xigtay un dad xog ogaal ah oo markaasi ka agdhow labada madaxda kuwa kenya iyo kuwa waxa weye dowladda federaalkaba halkaas baa marka lagu kala qaatay oo shirkoodii ugu soo gabagabo waxay wararku marka sheegayaan in ay madaxda kenya kala hadlayeen xiisada jubbaland kala dhaxaysa iyo ciidanka tirada badan ee dowladda federaalku ay kusoo daadguraynaysay maalmihii ugu dambeeyeyba deegaanada jubbaland iyo sidii loo xakamayn lahaa marka axmed ninka la yidhahda xasan sheekh maxamuud waxaa la faray inuu bal u kaadiyo ciidankan dambe uu soo wado lagana warsugo oo inta bal kenyana ay axmed madoobe kala hadlayso laga warsugo ayay kala hadleen baa layidhi oo weliba waxaa layidhi jooji bal ciidankan u yara kaadi baa layidhi taasi waa midaas isla saacado kadib iyadoo weliba warkaasi uusan banaanka usoo bixin waxaa magaalada nairobi soo gaadhay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa soo dhoweeyeen kulan ayayna wada qaateen weliba degdega oo madaxda dalka kenya ay la qaadeen waxaa la sheegay in xilligaa xasan uu imaanhayay la faray war adigu bal intaad laabato ra-iisul wasaaraha noo soo dir ninka la yidhahdo xamse cabdi bare noo soo dir baa layidhi aan si qoys iyo si dowladeedba aan u wada hadalnay ra-iisul wasaaraha marka safarkiisa degdega taasaa keentay labadoodana safaradooda horey looma sii shaacinina waxay ahaayeen safaro degdeg ah oo bulshada soomaaliyeed xataa laga qariyey warbaahintaba laga qariyey ayay ahaayeen walow xamse isagu markii dambe garoonka markuu kasoo degaya jomo kenyatta magaalada nairobi dee sawiradiisa iyo wixiisa la qaado lasoo bandhigay madaxda dalka kenya soo dhaweeyeen si fiican baa loo soo dhaweeyey xamse kulanka ay qaateen waxaa la sheegay in dowladda kenya ay diiradda ku saarahayeen ama ay kala hadlahayeen sidii loo joojin lahaa ama loo dhimi lahaa xasaarada kala dhaxaysa jubbaland si markaasi wadahadalla loo furo loona dhammeeyo khilaafkan jubbaland iyo dowladda federaalka xamse dee ajandayaal buu wataa oo la xidhiidha in axmed madoobe uu ka laabto arrimahan isku caanashubka doorasho dowladda federaalku ay qabanaysana oo ay waxa weeye uu ka qayb galo oo uu u diyaar garoobo oo arrintan uu gebi ahaanba ka laabto waxaa kaleeto uu wataa in uu kusoo laabto shirkii golaha wadatashiga qaran ee axmed madoobe uu fashiliyey ee uu kasoo kacay isagoo ka socda magaalada muqdisho waa ajandaha uu wato xamse weye waa midda koobaad haddii taay noqon weydo waxaan kala qaadnaan leenahay kenyahay hana dhexgeline nooga dhexbaxa naga dhexbaxa annaga iyo axmed madoobe waxaan kala qaadnaan leenahay weeye isagu ninka la yidhaahda xamse ma barbarahayo qorshaha uu watay laga soo xigtay waa midaasi xagga kenya waxay doonayaan in xiisadan la dejiyo wadahadal la galo axmed madoobe loo yeedho caana shubkiisa iyo dhaqangalka siduu u dhaqangeli lahaa iyo qorshaha dowladdu ay ku dhegan tahay in la iswaafajiyay doonayaan inta badanna wuxuu codsiyada ka imaaday ninka la yidhaahdo axmed madoobe oo madaxdan dalka kenya soomaalida ee weliba ku haybta ayuu uga dacwoodo wuxuu yidhi waa laygu soo duulay oo hawiya igu soo duulo waxaa laisoo adeegsaday kii dad igu dhowaa een anigu xildhibaanka siiyey ee aan u magacaabay ra-iisul wasaaraha ee magacaabisiisan qaybta ka qaatay ee heerkaasi anigu aan gaarsiiyey ayaa laisoo adeegsadayo dhallinyaradaydibaa qori layskugu dhiibay oo ciidankaydibaa layga kaxaysanayaa oo anoo keligiiya meel lay fadhisiiye kenyay maxaad iga dhowranaysaan buu yidhi maadaama jubbaland ay gacanta ku hayso ciidanka dalka kenya ay gacanta ku hayaan oo dhiig badan ay u shubeen run ahaantii qabashada magaalada kismaayona iyo deegaanadan hadda la hayana ay kenya qeybta ugu weyn ay ka qaadato iyadu weliba ay maal iyo dhaqaaliya weliba waktiba ay ku bixisa hadday noqoto guud ahaan dowladda kenya iyo hadday noqoto gaar ahaan mas-uuliyiinta soomaalida ee markaasi ku matasha soomaalida dalka kenya madaxda dalka kenya hadday noqotoba
kuwa dhintay iyo kuwa hadda noolba dadaal badan ay ku bixiyeen qabashada inta yar ee Axmed Madoobe u afduuban 13 sano oo run ahaantii weli ilaa iyo hadda weliba ciidanka dalka Kenya ay ku sugan yihiin hadda deegaanadan lagu daadguraynayo ciidamada dowladda federaalku ay ku daadguraysay iyo weliba ilaalinta Kismaayaba ay qayb lixaad leh ay ka qaadanayeen ciidamada dalka Kenya sidaa awgeed buu markaa Axmed Madoobe ugu dacwooday Xamza uu magaalada Nairobi ku sugan yahay kulamadu waa sii socdaan waxa weeye ergo caalamka ka socotay buu halka kula kulmaya madaxda dalka Kenya waa kulmeen wada hadalladu waa sii socdaan dhinaca kale to qurba joogta iyo mas'uuliyiinta dalka Kenya Soomaalidaba iyadana inuu la kulmayo ayaa la sheegay kulamo uu la qaadan doono markuu ka soo dhamaado madaxda dalka Kenya uu ka soo dhamaado dhinaca kale to waxay waran kala sheegayaan iyadana in Axmed Madoobana loo yeeray oo xalay waliba siq dhexe xilli aniga la isoo sheegay 7 saac oo habeenimo ayay ahayd ama 1 habeenimo ayay ahayd mid u taqaanaba xilli habeenka kala barkiisii la dhaafay ayay ahayd anoo meel shir ah ka imaaday oo soo socda ayaan ishelnay wakiiladii Axmed Madoobe u joogay qaar kamid ah magaalada Nairobi waan iskaftaminay waxay ii sheegeen in Axmed Madoobe uu ku jiro garoonka waqti xaadirkan una xilli dambuun adigu 9 ama 3 habeenimo midkii aad u taqaanaba 9 aan waliba 3 habeen adigu Soomaalidu midba sibay u taqaanaay in xilliyadaasi uu ama 4 habeenimaba oo xilliga salaad subax waliba ay soo dhowdaay uu ku soo wajahan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya lama xaqiijinin imaatinkiisi inuu soo gaaray iyo inuu hakad ku galay garoonka Kismaayo ama inuu Kismaayaba hakad kale uu ku galay la ima xaqiijinin laakiin warkaasi waxaan ka soo xigtay wakiilada Axmed Madoobe uu jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waliba qaarkood ugu furada dheerga ugu dhow Axmed Madoobe ayaa arintaasi isoo gaarsiiyay taasina waa taasoo waa imaatinka Axmed Madoobe iyo waxa Kenya ay doonaysa inay kala hadasho dabcan waxa laga hadlayo waad garanaysaan oo Axmed Madoobe hadda markaad qiimeyso aad Kenya ulama socoto oo waxay doonayeen isbedel inuu ka dhaco Jubbaland ayay doonayeen oo madaxda dalka Kenya iyo ciidanka dalka Kenya ba boqolkiiba 9 ama 80 aan dhahne kalsooni badan laguma qabo sida hadda ciidanka daraawiishta Jubbaland ay u naceen ee shacabkii u naceen dadka uga cararayaan Axmed Madoobe ayay ciidankii Kenya uga cararayaan waxa leeyahay bal meeshan aad iska fadhido isbedel ha ka dhacaan leeyahay oo meeshan bal horta dadkan reer Jubbaland wax u ogolow hal mowqif way ka wada rumaysay way aaminsan yihiin oo ciidanka dalka Kenya kuma ay raacsanaan dawladda federaalka in ciidamo la keeno ciidamo la soo daadgureeyo dagaal dhaco kuma qaracsana oo macnaha kuma raacsana laakiin mid bay ku raacsan yihiin oo isbedel inuu ka dhaco Jubbaland ciidanka dalka Kenya iyo mas'uuliyiinta dalka Kenya ba dhamaantoodba way doonayaan oo si weyn bay waliba u rabaan in isbedel uu ka dhaco dalka Kenya Axmed Madoobe baa la marsiin lahayd oo wixii boobahaya mooyeen iyagu kuma ay raacsanaan hatta ciidanka ATMIS ka tirsan Kenya ee gudaha Jubbaland jooga kuma raacsanaan Axmed Madoobe soo noqoshadiisa iyo cubrinta iyo sidoo kale marorsiga doorashooyinka arrimaha la xiriira taasina waa taasoo Axmed Madoobe wax laga hadli doono waa inuu arki doonaa ku degdegi mayno iyo qodobada ka soo baxaba dhinaca kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa shaacisay in Kenya ay ka wada hadleen oo ay ku heshiiyeen howlgal ka dhan ah kooxda khawaarijta ee gudaha Soomaaliya ka taagan inay iska kaashadaan oo ay dagaalo ay iska kaashanayaan ay ka bilaabaan gudaha dalka Soomaaliya arintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya mowqif adag ay ka istaagtay si joogitaanka ciidamada Itoobiya ay joogahayaan gudaha Soomaaliya ama ay qayb ka noqonayaan howlgalka cusub ee UNISOM ee 1 January ama sanadka cusub ee 2025 ka bilaabanaya gudaha Soomaaliya ka bilaabanaya ee midkan ATMIS bedelaya inay Itoobiya qayb ka sii ahaato ay mowqif adag ka istaageen oo ay si cad waliba u diideen oo ay dhaheen ciidamada Itoobiya waa inay bishan hadda soo bilaanaysay maalmaha ka dhiman ee December dhamaadkeeda aan lagu arag hal askari oo Itoobiyana oo ku sugan gudaha Soomaaliya Itoobiya dawladihii bay tashkiilshanaysaa oo ay leeshiinaysaa wilaayada Kenya waxaan ku heshiinay sidii aan dagaal wada jira uga bilaabi lahayn la dagaalanka khawaarijta gudaha dalka Soomaaliya waxa arintaasi shaaca ka qaaday taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Burhanu Jula oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in Kenya iska kaashan doonaan la dagaalanka khawaarijta ku sugan gudaha dalka Soomaaliya horey bayna u sheegtay Itoobiya waxay sheegeen in ciidankoodu aysan bixi doonin
qeybna ay ka noqon doonaan ciidamada unisom ee imaanahaya ee bedelaya ciidankan ATMIS ee gudaha Soomaaliya hadda ku sugan howlgalkan cusub ee sanadkan soo socda bilaabanaya. isdiidooyinkan ayaa waxa ay khubarada caalamku ay si weyn u hadal hayaan ama khubarada geeska Afrika ba ay sheegayaan inay uga sii darayso xiisada Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaysa maadaama Ethiopia ay sheegtay inaysan ka baxaynin gudaha Soomaaliya howlgal cusubna ay bilaabaysaba oo ka dhana kooxda khawaarijta Soomaaliyana ay leedahay waa in Ethiopia ay naga baxda in halkaasi uu ka dhalan karo dagaal Ethiopia iyo dhaxmara ama ciidanka Ethiopia iyo dhaxmara ciidanka Soomaaliya. dhinaca kale to arintan ayaa ku soo aadaysa iyadana xilli Ethiopia ay u yeedhay qaar kamid ah gudoomiyaashii gobolka Gado isla markaana ay shir ugu maqan yihiin magaalada Goday oo saldhig weyn ciidanka Ethiopia ay halkaasi ku leeyihiin. mar walba oo Ethiopia ay doonayso in ay qorshayaasheeda fulisana inta badan waxay adeegsataa gudoomiyaasha iyo sidoo kale madaxweyne maamul goboleedyada deegaanada ay ku xoogan tahay gacanta ay ciidankeedu ku hayaan. horay ayay marar badan gudoomiyaasha